Bardaale laguma arki karo qof isbaaro ay u taalo misna dhigtay. Haddaba ciqaabtan ayuu marayaa qofkii lagu arkaa oo ka tirsan ciidanka iyo sidoo kale maleeshiyaadka qoryaha ku haysta gudaha degmadaasi. Waa muuqaal markaad aragto aad u moodayso qof dhibaato xoogan loo geysanayo, laakiin waa ciqaabta ay ku heshiiyeen dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan gudaha degmadaasi Bardaale ee gobolka Bay. waxaana wararka halka ka imaanaya ay sheegayaan in maalmihii la soo dhaafay halkaas ay ka socdeen howlgallo xoogan oo ay wadeen ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa deegaanka kadib markii halkaas ay ku soo bateen dilalka dadka shacabka ah iyo sidoo kale dadyowga kale ee ka tirsan mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaa maalmo ka hor halkaas lagu dilay Allah u naxariistay mid kamid ah malaaqyada Koonfur Galbeed ka soo jeeda kaasi oo ay weerar ku qaadeen sida la tilmaamay ciidan ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed israasaaseen dhexmartay koox hubaysan oo ka agdhaweyd halka uu deganaa malaaq iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa halkaas isku risaasiyay ugu dambeynna waxa ay sababtay geerida malaaqa oo ugu dambeyn halkaas lagu aasay. wixii xilligaas ka dambeeyay waxa maamulka Koonfur Galbeed loo gudbiyay cabashooyinka kala duwan ee ka imaanaya dadka deegaanka ee shacabka ah ee ku sugan halkaas iyo sidoo kale dadka adeegsanaya wadooyinka kuwa ka soo baxay iyo kuwa gala gudaha degmadaasi. kulan ay halkaasi ku yeesheen dadka deegaanka iyo ciidan ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa laga soo saaray dhowr qodob waxaana heshiiska ku jiray in ciddii lagu arkaa inay isbaaro u taalo misna dhigataa la qabto kadibna la dhooqeeyo misna dhiiqa loo mariyo laguna soo wareejiyo suuqyada gudaha degmada Bardaale ee gobolka Bay. ugu dambeyn waxaa dhacday in mid kamid ah subaxnimadii hore ee saaka gacanta ay ku dhigeen ciidamada ninkan oo aad u jeedaan sawirkiisa iyo muuqaalkiisaba isaga oo waliba dhooqo madaxa loogu marinayo iyo guud ahaan jirkiisa oo idil laguna soo wareejinayo suuqa weyn ee gudaha degmada Bardaale. waxaana laga tusayaa dadka shacabka ah in la dhaqangeliyay heshiiskii ay wada gaareen iyaga iyo sidoo kale ciidanka militariga Soomaaliya iyo daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Koonfur Galbeed meelo badan oo kamid ah waxa yaala jidgooyooyin xoogan dadka shacabkaana dhibaatooyin xoogan ay ku qabaan. mararka qaarkood dadka adeegsada wadooyinkaas waxay la kulmaan dhac iyo sidoo kale jirdir xoogan oo ay u geystaan kooxaha hubaysan ee isbaarooyinka dhiganaya. gobolada Bay, Boqol iyo Shabeellaha Hoose waa inta badan ama meelaha inta badan ay yaalaan isbaarooyinkaasi qaarkoodna waxa haysta dagaalamayaal ka tirsan shabaab oo aanan loo geli karin tuulooyinka iyo deegaanada qaar. wixii ku soo kordha arrintan barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa.